madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga wadankan Talyaaniga gaar ahaan magaalada caasimadda ee Rome ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha wadankani Giuseppe Conte ayadoona labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Talyaaniga iyo waliba Soomaaliya. intii uu kulanka socday ayaa ra'iisul wasaaraha wadankani Giuseppe Conte waxa uu ballan qaaday inuu Talyaaniga hormuud u noqon doono caawinta dalka Soomaaliya isla markaasna Talyaaniga iyo Soomaaliya ay wax badan wada qabsan doonaan ku aadan dhinaca xiriirka ganacsiga. wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qayb ka ah kulanka ay qaateen madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha wadankani ayaa saxaafadda la hadlay asagoo sheegay in wax badan laga wada hadlay. wasiirkana waxa uu yiri madaxweynaha waxa markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay salaan sharaf oo iyadoo la saaray calanka Soomaalida iyo calanka Talyaaniga intaba kabacdina madaxweynaha wuxuu ra'iisul wasaaruhu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga maxaliyada Giuseppe Conte wuxuu ku soo dhaweeyay xafiiskiisa meeshaas oo ay wada hadal dheer ku yeesheen mashaariic gaar ah lagama hadlin hadda waxa lagu heshiiyay in la xoojiyo xiriirka labada dal oo heer kale la gaarsiiyo wuxuu ra'iisul wasaare Conte qiray in Soomaaliya intii uu madaxweyne Farmaajo la doortay ay maaragtay maxaliyada ay kaalin fiican kaga jirto adduunka Soomaaliya wuxuu aad u tilmaamay xiriirka geeska Afrika ee soo xoogsanaya soo wanaagsanaya iskaashiga ka jira gaar ahaan wuxuu dul istaagay heshiiska saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea dhexmaray oo aad u amaanay iyo dabaysha iskaashiga ee gobolka oo dhan ka socota. marka aad ayuu madaxweynaha arintaas ugu amaanay oo uguna tahniyadeeyay. marka heshiisyada la xiriira mashaariic gaarihi waa inuu ka horeeyaa isfaham guud oo xoogan kaas ayaa maanta suurto galay. waxaa muuqatay commitment ama go'aan dhab ah oo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ka muuqatay inuu doonayo in xiriirka Soomaaliya Talyaaniga aad loo xoojiyo heer sare la sii gaarsiiyo gaar ahaan sidaan hore u sheegay dhanka iskaashiga dhaqaalaha oo dabcan Talyaaniga laga filayo taageero badan inay gacan fiican ka geystaan. wuxuu kaloo ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Talyaanigu mudane Conte in Talyaanigu iyo isagu gaar ahaan ay noqon doonaan uu noqonayo champion ama uu hormuud ka noqonayo dhiska iyo xoojinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo oo Yurub dhan iyo adduunkaba uu rabo inuu maartay kaalintaas ciyaaro iyo in isagoo codsaday in Soomaaliya iyo Talyaanigu ay soo cusboonaysiiyaan xiriirkoodii dhaqan dhaqaale iyo waxbarasho ee ka dhaxayn jiray. marka wuxuu ahaa kulan faa'iido badan u yeelan doona dadka iyo dalka Soomaaliya. madaxweynaha intuu uu joogo wadankan Talyaaniga ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani.